waxaan joognaa magaalada Addis Ababa barnaamijkan waxa martii waa wasiirka maaliyadda ee dalka Ethiopia wasiir Ahmed Shide oo isla markaasna gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga Soomaalida ee wadanka Ethiopia xisbigaas oo ka taliya deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia mudane wasiir aad iyo aad baad u mahadsantahay waraysigan aad naga qabshay waan mahadsantahay aad mudan su'aasha ugu horreysay ku weydiinaya waxa weeye mid ku saabsan xagga dhaqaalaha dunida oo dhan waxay ka hadlaysaa kobaca dhaqaalaha ee xawliga ku socda ee dalka Ethiopia ma ku faraxsantii sida hawlooyinka yihiin guud ahaan waan ku faraxsanahay dhaqaalaha Ethiopia kobaca dhaqaalaha guud ahaan dalka Ethiopia waa mid xawli ku socdo 13 sano ilaa 15 sano kobaca dhaqaalo badan baa jiray sanad walba growth-ka ama isbedelka kobaca dhaqaalaha aad iyo aad buu sareeyaa wadamada adduunka xagga kobaca dhaqaalaha kuwa ugu sareeyo kamid yahay oo haddana sidaas oo kale u yahay marka dawladdu maalgashi badan bay ku sameysay xagga kaabayaasha dhaqaalaha xagga human capital-ka investment badan baa la geliyay iyo xagga nidaam dawladeedkana in la xoojiyo kartida dawladeed iyo shacabka xiriirka u dhaxeeya in la xoojiyo waxa badan baa laga qabtay marka horumarinta beeraha kale wax badan baa ka soo kordhay kobaca dhaqaalaha xagga warshadeynta kale iyo adeeg bixinta kala duwan ee hay'adaha dawladda ay bixiyaan xagga adeega bulshada iyo adeega kaabayaasha dhaqaalaha kala duwan marka dawladduna waxay leedahay istaraatiijiyad ballaaran oo ku saleysan sida horumarka loo hogaamiyo qorshihii 5 sano oo horumarineed baanu leenahay sektarada kala duwan ee dhaqaaluhuna waxa lagu hogaamiyaa si qorshe habaysan ayaa loo diyaariyay marka runtii waxa la dhigi karaa kobaca dhaqaaluhu aad iyo aad buu u fiican yahay gaar ahaan haddana intuu ra'iisul wasaaraha cusub yimid reform badan baan ayaan wadnaa oo lagu bedelayo qaabkii waxa wadnay dhaqaalaha waxa weeye xagga private sector-ka in xoog la saaro oo wax soo saarka kobaca dhaqaalaha oo qayb weyn ku lahaadaan maalgashiga gaarka ayaanu daneynaynaa hay'adaha dawliga hadda koor maalgashi badan aan ku sameynay privatization baan ku sameyn doonaa oo maalgashi dibadeed inuu wadanka soo galo laga shaqeyn doonaa marka ujeedada ugu muhiimsan waxa weeye kobaca dhaqaalaha inuu noqdo mid waara ayaa loo baahan yahay xagga wax soo saarka maaliyadeedna in maalgashi badan oo dibadeedna aanu keenan doonayna oo investment ballaaran oo wadanka ka hirgalo iyo private sector-ka aanu leenahay gudahana in la xoojino ayaa shaqooyinka la waday ka mid tahay dhinacyada marka qorshaha idinku jira wasiir in maalgashiga u fasaxdaan kuweba kamid ah telecommunication-ka kamid ah in company-ga dawladdu ay leedahay in privatization lagu sameeyo qayb kamid ah aan ku sameeyno doonaynaa sector-kana maalgashi dibadeed inaan u furno ayaanu doonaynaa oo baarlamaanka go'aamin doono in sharciga noo sahlaya arrimahaasna ayaa lagu guda jiraa baarlamaanka go'aamin doono markuu baarlamaanka go'aamiyo waa markii ugu horeyso taariikhda Ethiopia oo telecommunication sector-ka uu furnaan doono maalgashi dibadeed buu noqonayaa marka taasi waxay qayb weyn ka qaadan doontaa guud ahaan horumarka dalka oo maalgashi badan way keenaysaa miisaanad badan dawladdu way helaysaa miisaanadaas dawladdu heshana marka investment-ka kala duwan ee dalka ayay ku sameyn doontaa aviation-ka kala kamid ah in privatization lagu sameyn doono energy-ga kamid ah xooga tamarta soo saarka iyo logistics sector-ka oo hadda koor u xirnaa gudaha kale u xirnaa oo maalgashi dibadeed aan loo ogoleen marka sectoradaas partial privatization waxa uu naqaano ama in qayb kamid ah aan maalgashi u furno ayaa la doonayaa iyo in sector-kana loo furo maalgashi dibadeed baanu doonaynaa si competition ama tartan uu ka dhaco sectoradaas oo dhan qaybaha kale ee dhaqaalaha oo dhanna waan fureynaa oo maxay ahayd maalgashi dibadeed mid loo furayo noqonaya marka wali waxaanu kala go'aaminin banking sector-ka marka go'aan wali lagama gaarin dhinaca baananka taasi waa tartiib baan u sameyn doonaa mustaqbalka mooga hadda go'aan kama dhicin markay timaado wadamada caalamka dalka Shiinaha ayaa ilaa imika hormuudka ahaa dhinacyada wada shaqeysaan mashaariic aad iyo aad u fara badan bay ka hirgeliyeen Ethiopia ma ka mid tahay wadamada ka walaacsan deynta Shiinuhu ay ku leeyihiin Afrikaanka run ahaantii xagga ka faa'iideysiga deynta Shiinaha ee Afrika ku leeyihiin Ethiopia si wanaagsan bay uga faa'iideysatay dhammaan deynta aan Shiinaha ka qaadanay maalgashi kobaca dhaqaalaha wax u taraya iyaanu ku maalgelinay wadooyin baanu ku dhisnay tareemaanu ku dhisnay warshadaanu ku dhisnay warshadaha sokorta kale
telecommunication kan investment ballaaran ku gelinayd marka run ahaantii waxaan dhihi karaa asset fiican iyaanu ka sameynay deenta aanu ka qaadanay Shiinaha marka isticmaalka deenta markay tahay walaac weyn nagama hayso laakiin markay tahay bixinta waxaanu qorshe cusub baanu galnay dowladda Shiinaha wada hadalay Ra'iisul Abiy Ahmed marka socdaalkiisa ugu horeeyay Shiinaha uu tagay iyo kadibna dhawaan markaanu ku noqonnay wada hadallo badan baa dhacay guddi baan sameynay oo dhaqaale ka kooban oo aniga aan hogaaminayo marka waxa dowladda Shiinuhu noo ogolaadeen nooca deynta hadda korna siiyeen oo loo yaqaan commercial loan iyo marka xilliga la bixin lahaa ama grace period-ka iyay noo jilciyeen marka culeyskii nagu dhici lahaa deen bixinta muddada 5 sano dib bay noogu dhigeen ka dhigay taas daraadeed waxa la karaa culeyskii weynaa ee nasoo food saarnaan lahaa xagga bixinta deenta dib baa la noogu durkiyay taasi marka waxay nasiinaysaa karti fiican bay nasiinaysaa mudane wasiirin kastoo horumar xoog leh uu ka socdo wadanka Ethiopia haddana Ethiopia waxa weeye wadanka labaad ee dadka ugu badan qaaradda Afrika dhalinyarada ay dadku u badan yihiin xagga shaqooyinka shaqalaan xoog la jirta kuwada shaqada helana mushaharadu aad iyo aad bay u yar tahay maxay idin ka qorshaysan tahay arrimaha xoogga la saarayo hadda waxa waa shaqo abuurka gaar ahaan shaqo abuurka dhalinyarada iyo shaqo abuurka aqoon-yahanka jaamacadaha ka soo baxaya inkastoo kobac dhaqaale badan uu soo kordhay xagga shaqo abuurka marka la dhaho wali culeys badan baa naga haysta tirada shacabkan aad ugu badan yahay jaamacadaha dalka waxa ka soo bax 100,000 sanadkii marka kobaca dhaqaalaha shaqadu abuurayo iyo tirada jaamacadaha ka soo baxaysa ma laha marka taas daraadeed dhalinyaro badan oo shaqo aan lahayn baa wadanka jirta oo tiradooda aad u badan marka taas daraadeed culeys weyn baanu saarnay arrintaas maalgashiga dibadaha aan u furayno dhaqaalaha in maalgashi badan wadanku u yimaado hadafka weyn aan leenahay waxa weeye waa in shaqo abuur badan uu ka dhaca weeye in dadku dhinaca businesska ama ganacsiga ama shaqo abuurka galana waxyaabaha xadidi jiray oo iyaan reform ku sameynay ease of doing business waxa loo yaqaano iyaanu sameynay waxa kaloo la wadaa in deen la siiyo dhalinyarada iyo aqoon-yahanka sidii shaqo abuur ku sameyn lahaayeen oo iyaan wadnaa horumarta masnooyinka kale in beeraha masnooyinka kale dhalinyarada kala duwan jaamacada ka soo baxa inta la isku abaabulo isku dubarado inay shaqo abuur sameeyaanna shaqooyin badan baanu ka wadnaa marka run ahaantii kobaca dhaqaalaha dambe ee maalgashiga dheer dibadda aan ka rabno aan ku keenano wuxuu qayb ka yahay shaqo abuurka sidaan u abuuri lahayn arrimaha gobolka markaynu nimaadno intii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu talada wadanka qabtay bishii April sanadkii hore waxaa jiray isdhexgal xoog leh ama Eritrea ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto ama Djibouti ku dheeda ha noqoto dhawaanna waxaa halkan ku qabateen shir ay ka soo qayb galeen wasiirada maaliyadda ee dhowr wadan oo gobolka maxaa kaga hadlayseen waxaan ka hadlaynay waxa weeye Prime Minister Abiy Ahmed suu xukunka u qabtay arrimaha ugu muhiimsan oo ugu horaanba ku dhaqaaqay waxa weeye isdhexgalka geeska Afrika inuu isbedel ka yimaado asagoo dhammaan bulshada Ethiopia qoomiyadaha kala duwan uu booqday wada hadal la sameeyay isbedelka uu doonayo iyo midnimada shacabka sidii loo xoojin lahaa khilaafaadkii meelo kala duwan ka jiray sidii waxaan la iyo xooga saaray kadibna wuxuu xooga saaray nabadgelyada dowladaha jaarka gaar ahaan Eritrea nabadda Eritrea laga gaaray waxay geeska Afrika ku soo biirisay jawi wanaagsan oo cusub oo dowladuhu geeska Afrika hadda diyaar u yihiin oo jeesadaan dhinaca horumarka iyo isdhexgalka dhaqaalaha iyo ka wada faa'iideysiga dhaqaalaha wada jirka ay u galayaan marka taasa marka waxay keentay in booqasho badan uu ka sameeyay dowladaha jaarka heshiisyo kala duwan la soo galay dowladaha jaarka Djibouti ka mid ah sidii loo xoojin lahaa isdhexgalka dhaqaalaha Djibouti Ethiopia Soomaaliya ka mid ah 4 corridor ilaa 5 corridor sidii si wada jir loo horumarin lahaa baa laga wada heshiiyay dowladda Kenya Lapsset corridor iyo dhinaca wadooyinka iyo mooyaalo kalena in si wada jir horumar laga sameeyo waa mid heshiis la gaaray ahayd dowladda Suudaan sidaas oo kale Eritrea oo kale nabadgelyada cusub ee la gaaray waxay noo sahlaysaa si cusub inaan xagga maritime logistics ama dekadaha Eritrea inay ay ka horumarsadaan annagana wadooyinka dhinaca Casab iyo Masawa aan dhisno isdhexgalka dhinaca Asmara iyo Ethiopia meelo kala duwan la sameeyo 4 corridor baan ku heshiin inaan si wada jir uga shaqeyno
marka taasi waxa barbar socday bangiga adduunka iyo midowga Yurub iyo bangiga Afrika siday ku caawin lahaayeen isbedelka nabadeed ee geeska Afrika ka dhacay siday ku caawiyaan horumar ahaan loo tallaabsado waxay ayakana fikirka ku taageereen Horn of Africa Initiative oo ah in shanta wadan oo Eritrea ka mid tahay Djibouti, Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia si wada jir mashaariic kala duwan si wada jir u sameyn karaan ee la yimaadaan maxaa kamid ah mashaariicda wadooyin baa kamid ah dekadaha kamid ah telecommunication ko fiber optic kamid ah koridorada transport corridors iyo laf dhabar u ah laakiin mudane wasiir markay timaado Soomaaliya ballan qaadiyo hore jiray oo ku saabsan isticmaalka dekadaha oo ku saabsan sidii loo sameyn lahaa jidad isku xidha dekadaha iyo wadanka Ethiopia laakiin waxba kaba dhaqaaqin Soomaaliya run ahaantii meelo wax ka socdaan way jiraan berbera corridor kale saahan dadaalla laga wada jiro berbera corridor in maalgashi laga helo ama wadooyinkana tog wajaale iyo berbera isku xira dadaalla laga wada jirta xaaladda Soomaaliya in nabadgelyo la sii xoojiyo waa muhiim wadooyinkana in la dhiso waa muhiim Soomaaliya in dekadaheeda dhisto waa muhiim marka run ahaantii Horn of Africa Initiative wuxuu si cusub noogu sahlayaa si wada jir Soomaaliya inaan wada qorsheeno waa marka ugu horeyso shir wasiirada maaliyadaha geeska Afrika isugu yimaadaan dal walba uu soo dhaweeyo qorshihiisa visionka ku saabsan integrationka Soomaaliya waxay dadaal ku wadaa in bangiga adduunka laga saaro errors laga saaro haddii marka bangiga adduunku ka saaro errorska oo waa deymihii ay Soomaaliya ku lahaayeen haddii laga cafiyo si cusub bay marka resource u heli kartaa bay ka dhigan tahay marka bangiga adduunku wuxuu diyaar u yahay in Soomaaliyana sanadkan dambe uu markay Soomaaliya diyaar garowga la dhameystiro in deema ama deeq toos ah wadooyinkan iyo maalgashinka lagu sameyn doono wadooyin kale tama waxa lagu dhisay human development xagga caafimaadka waxbarashada beeraha kale investment lagu sameeyo gaar ahaan xoolo dhaqatada waxaad ogsoon tahay shacabka xoolo dhaqatada waliba xagga xuduudaha aad degan in xoolaha iyo xoolo dhaqatadaba in xoog la saaro horumarkooda ayaa laga shaqeyn doonaa tan kale waxa la sameyn doonaa trade facilitation custom post ama border post iyo shuruucdan noo dhaxeeya xagga travelka ama travel of goods movement of goods loogu talagalay in sidii loo sahli lahaa oo nidaamyo kala duwan oo u sahlaya logisticska iyo isku isdhexgalka shacabka mid u sahla ayaa la sameyn doonaa isdhexgalka